waayo saaxiibayaal rabada wanaagsan sabti wanaagsan suuqa maanta aad buu qurux badan yahay coinka saaxiibayaal badankood way soo laabteen saa u jeedaan moodo cagaar weeye qiimaha bitcoin saaxiib hadda wuxuu marayaa 84330 dollar wax macquul ah 85 inuu gaaro ayadoo weekana hadduu suuqa soo laabtay xoogaa waxa moodaa saaxiibayaal in waxa warjo fiican soo gashay ethereum haddii aan fiirin saaxiibayaal 1.4% soo kacay 1938 buu mid coinka xoogaa fiican soo kacay waxa ku jira saaxiibayaal XRP Solana min waxa soo kaceen 5% tusaale kale XRP hadda wuxuu marayaa 2.4 Solana saaxiib marayaa 134 marka guud ahaan saaxiibayaal coinska way soo kaceen render oo kale 6% buu soo kacay tono kale asaa ugu weyn 19% soo kacay kaas baa u jeeda asna saaxiibayaal soo kacay marka aad cumrada iyo xajka aadayso waa suurtagal inaad ilowdo kaarkaaga bangiga laakiin waxa suurtagal ahayn inaad ka tagto mobilkaaga oo uu kugu jiro Wafi Digital Mastercard ku dukaamayso ku jira tigidhada ku isticmaal ATM-yada ku bixi biilka hotelkaaga Wafi Mastercard saaxiibka safarka iyo dalxiiska marka saaxiibayaal guud ahaan aan suuqii u soo laabtay hadii marka aan safar saaxiibayaal news ku weyn David Sacks oo saaxiibayaal la taliyaha madaxweyne Trump dhanka ayada waxa way kriptaha dhamaanba kripto haystay uu isku iibiyay shirkad xitaa uu lahaa raasumaalkeedii way iibiyeen kriptuhu iibiyay saaxiibayaal waxa uu dhigtaa 200 milyan awal wuxuu ahaa nin si toos kriptaha iyo bitcoin saaxiibayaal u maalgashto sababta uu iibinay waxa way maadaama uu shaqadiisa aqalka cad u bilaabayo wuxuu ku qasban yahay oo dastuurka Mareykanka dhigaya in waxa way qofka shaqadan qabanayo uu markaas kripto isku dhaxjin ama uu iibsan marka saaxiib sifo oo article-kaas ama qodobkaas waxa weeye u raaco buu sameeyay warqadaasna saaxiib waxa shaaciyo White House ka saaciyo inuu dhamaanba iska iibiyo waxa weeye in kriptiisa David Sacks sidoo kale saaxiib dahabkii record cusub uu jabiyay wuxuu gaaray 3016 dollar buu gaaray per ounce waxa loo yaqaan halkii ounce wuxuu dhigmaa saaxiibayaal 20 gram buu dhigmaa marka 20 gram 3000 iyo wuxuu gaaray saaxiibayaal 16 dollar meel fiican buu saaxiibayaal gaaray marka xitaa saaxiibayaal la isbarbar dhigo bitcoin waxa weeye dahabka runtii dahabka ba meel fiican gaaray bilii u damay saaxiibayaal bitcoin hoos buu socotay halka saaxiibayaal dahabka uu kor u socday bitcoin saaxiibayaal waxa lagu naanaysaa digital gold dahabkeena asoo digital weeye chartigan saaxiibayaal wuxuu isbarbar dhigay dahabka BTC dahabka waa kan kor buu socdaa بيتسنا halka maalmaha u dambeeyay 12% ay dhacsan tahay marka dabcan dahabka meel fiican barowda dadka dahabka haysto gabdhaha u badan dahabka meel fiican buu socdaa qiimihiisana maanta cirka isku shareeray saaxiibayaal magaalada Aston ee gabadha taxi waxa lagu arkay calaamada ugu weyn oo bitcoin waxa sameynaya waa drones droneska mar dhaw yaac doonaan dad muuqaalka si fiican u jiristid way kala yaaci doonaan marka dabcan waqti badan bigo intaas drones in la soo keeno mid kasta calaamadaas waxa jabkeeda la dul saaro marka isku imaadeen waxa sameeyeen symbolka BTC ba sameeyeen hadda saa u jeedama drones way kala yaacay mid kasta meesheeda aaday marka taxi baa lagu arkay runtii adigu iska xaysiis weeye bitcoin la xaysiiniyo oo dadka la rabo in waxa weeye indhaha laga galgaliyo chartigan saaxiibayaal waxa saacay Bitwise waa dawladaha haysto bitcoin waxa hogaaminaya Mareykanka dawladda Mareykanka waxa saaxiibayaal 198,000 iyo 100 habaysta dawladda China ku jirto oo laftigeeda aan ka yareysan oo haysto 190,000 almost waxa wax yar dheer tahay boqortooyada Ingiriiska waa ku xigta oo 61,000 iyo 240 Ukraine dagaalka Ruushka kula jirto caadi maahan bitcoin badan baysta 45,000 iyo 750 habaysta boofaan wadanka 10,000 iyo 600 haysta El Salvador wadan aad u yar weeye saameyn badan leh waa wadanka bitcoin reserve si toos u leh waxa ugu horeeyay dunida 5,000 iyo 100 xabo haysta halka Venezuela 240 haysto Finland haysto waxa weeye 90 Georgia wadanti aad waliba bitcoin mine ka caan ku ah Yurub ku yaal asna haysto maadaama koronto badan haystaan wadankan Georgia aad bay u qotaan saaxiibayaal BTC badankeeda qodasho ku helaan korontada way raqiis shirkada ugu weyn oo bitcoin mine dunida ku yaal marka dawladahan saaxiibayaal waxa hogaaminaya Mareykanka sidoo kale saaxiibayaal Michael Saylor wuxuu yiraahdaa bitcoin 48 soo socota waxa noqon doontaa market cap dunida ugu weyn bay haysato the largest asset in the world and by the way shirkada maanta ka horeeya dacwad siinaytayo What's driving the growth of Bitcoin? It is the most powerful force in the world right now. It's growing nearly 60%. It's become the eighth largest asset in the world. It's about to be. هذا سأجد مساحبيال سدد بكوتشتا وحكاه رأي سيلفر أمازون ألفابت أما جوجل أنفيديا مايكروسوفت أبل يا جولد وده marka ayada wuxuu leeyahay xoog buu u socotaa qaybta sideedaad bay ku jirtaa waxaan aqoon isaawiye number 1 the largest asset in the world in the next 48 months 48 bilood soo socota number 1 bay noqonaysaa buu tahay runtii shirkado badan bay soo dhaaftay sanadka la soo dhaafay marka xoog buu socotaa
طبعا adigna waxa laga baahan yahay bitcoin taada jajabkaaga inay hayso hoos ka siisid saaxiib yaal institution loo yaqaan Wall Liberty Financial waxay iibsadeen 540,000 ka badan oo Zui bay iibsadeen $100,000 lacag bay ku bixiyeen institution Trump teamkooda iskale organization Trump iskale waxay arursanayaan konka loo yaqaan Zui marka make sure adigana Zui inay haysatid afartii u dambeeyay 5% buu kacay $2.36 maraya marka mashruuc weyn weey guys Zui waa big project weeye blockchain ka Solana bay la tartamayaan waana raqiis waana very fast labadaas isku qaatay waxay keenaysaa marka blockchain in aad loo isticmaalo marka team Trana saaxiib yal xoog buu iibsan koka Zui marka coinka aniga aad ku saarnaa ku jira dhowr jin waa in la wadaagay runtii madaxda Trump Ethereum iyo korkan Zui loo yaqaan aad bay u arursadaan groupkan loo yaqaan Wall Liberty Financial oo team Trump ka dambeeyaan sidoo kale saaxiib yal warweyn buu ka soo baxay ruushka waxa sheegeen ganacsiga dhexmara doon Hindiya iyo China lacag ahaan inay u isticmaali doonaan bitcoin Ether bayna waa isticmaali doonaan marka bitcoin waxa u badan in xoog loo isticmaalayo dabcan saaxiib yal waxa ka cararayaan dollarka inay isticmaalaan oo nimanka BRICS ku jira weeye marka bitcoin faa'iido weyn baa ugu jirta in saaxiib yal qaabka aydan loo isticmaalo dhanka kalena hadii aan fiina fiir angri index kana 22 maraya extend fiir ka laga soo baxaya altcoin season ka 12 ka soo raacay 17 maraya by the way meesha hadii 15 noqoto altcoin season waa bilaabmay muuqaal waa soo wada saaxiib aan uga hal doono wixii ku dhacay altcoin season ugu dambeyn saaxiib xooga waxa muddo suuq inuu soo laabanayo inkastoo weekend ay tahay wixii kale update saaxiib waa inuu wadaagi doonaa aad baan salaamiya ciao